sida la socotiin saddexdii maalmood oo la soo dhaafay ciidamada booliiska Soomaaliyeed waxay caasimada ka wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimada iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed. howlgalladan amniga lagu xaqiijinayo waxa ilaahay hadda laga fuliyay dhowr degmooyin oo ka tirsan gobolka Banaadir waana howlgallo sii socon doona. intii howlgalladan socdeen waxaa suurto gashay inay booliiska soo qabtaan dad looga shakisan yahay inay argagixisada la shaqeeyaan iyo kuwa qalqalgelinaya amniga guud. sidoo kale abaare 9 saac galabnimo shalay ciidamada booliiska oo gacan ka helay shacabka degmada Daynile waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan gacan ku dhiigle ka tirsan al-shabaab oo dil u geystay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka. arrintan waxay qayb ka mid tahay qorshe balaaran oo lagu xaqiijinayo amniga dalka iyo caasimadda. waxaa jira ciidamo dheeri ah oo la dhigay wadooyinka caasimadda kuwaas oo baariya gaadiidka iyo wixii kale ay ka shakiyaan. waxaan ognahay in qorshahan xaqiijinta amniga caasimadda ee la socdaan ama ay dhaliyaan culeysyo dhanka isku socodka meelaha qaar. sidaas darteed waxaa la diyaariyay gaadiid lagu qaado dadka oo u baahan caawinaad oo la geeyo meesha u baahan yihiin. ciidamada howlgalka fuliyana waxaa la faray inay si wanaagsan ula dhaqmaan shacabka Soomaaliyeed oo ah kuwa ay difaacooda jidadka u taagan yihiin. waxaan aad iyo aad ugu xunnahay falkii askari ka tirsanaa ciidanka milishiibi iyo dawladda hoose oo maanta ku dilay muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ah darawalada gaadiidka shacabka. waxaan murugta la qaybsanaynaa qoyskii ka baxay muwaadinka Soomaaliyeed Allah u naxariistay marxuum Ibraahim Aways Ahmed. sidoo kalena askariga dilka geysana waxaa la horgeyn doonaa sharciga. shacabka Soomaaliyeed waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dulqaadka ay muujiyeen iyo sidoo ay ula shaqeynayaan ciidamada amniga. waxaan rajaynaynaa in ciidamada ay garab istaagi doonaan shaqadooda. sidoo kale waxaan mar labaad bogaadinaynaa shacabka degmada Daynile oo shalay si geesinimo leh ciidamada amniga ugu gacan siiyay soo qabashada gacan ku dhiigle ka tirsan shabaab oo dil u geystay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka. waxaana ku kalsooni qabnaa in bulshada ku nool degmooyinka kale caasimadda ay sidaas oo kale ay ula shaqeyn doonaan ciidamada amniga. warbixinta idin hayay intaas weeyaan. aad iyo aad baan iga mahadcelinayaa imaantikiina iyo ka soo qaybgalka shirka. waana maasantihiin. anaga wax alle wixii oo loogu fudeyn karo shacabka Soomaaliyeed waan qabanaynaa, waana qorsheynaa, waana ku guda jirnaa. si jidadkaas ee la xiran sabab baa loo xiro, sabab laan looma xirin. laakiin waxaan qaadnay tilaabooyin loogu fududeynayo shacabka isku socodka. baabuuro baa loo diyaariyay, ambulaansiyo baa loo diyaariyay si ay shacabka dhibaatada ka soo gaaraya xiritaanka jidadka la sii yareeyo. waa maasantihiin.